السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبض وضيال كسر دوادا برنامج كنا نقول لما قع بحي وقلده حبها قلبي ذلك وبرنامج أين كل أركضونه حبيهنا دير كنت سن حبت قلبي ذلك بربرة إلى إيلو يعضو la socoteen waxaanu ka soo baxnay ama aanu ka soo goosanay dekada ciidanka ilaalada xeebaha iyo difaaca badda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadda dekadii masaafeer baanu ka soconay san hore bid ku sheegay socdaalka waxaan ugu helinay maariyaha guud ee dekadaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi oo barbarkiga taganaya weydiin doona bal safarkan maariya ku soo dhaw telefishinka qaranka بسم الله الرحمن الرحيم سفركن waa safar runtii aan ugu gaala bixinayno sidii aan u kormeer lahayn dekadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama maamulkaygu yahay hay'adda dekadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa safarkii horeeyay aan ugu baxnay maanta dekada weyn ee Seylac insha Allah waxa ku xigi doonta Mayd hadda waxa si marana lagu hayaa iyo Seylac taasoo la socda injineerkii dekaduhu si aan iyo wafdiga ciidanka ilaalada xeebaha oo iyaga laftooda baaxadooda iyo awoodooda ku muujinaya safarkan gudihiisa insha Allah maariya dekadii Soomaaliland ay dawladdu soo jeesatay sidii ay u eegi lahayd xaaladdeedu sida yihiin safarkiin nima yahay mid xaqiiqda lagu taabanayo kadibna laga jawaabay baahiyaha ka jira deegaanada sidaad ogtahay baa Mukhtaaro madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ballanqaadadiisii ama buugga waxa ka mid ahayd inuu kobciyo ilaha dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaas oo ugu waaweyn dekadaha runtii waxaan ka jawaabaynaa awaamirtii uu nafaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si aan u soo eegno assessment lagu soo sameeyo sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabo wax qabadka iyo dactirka dekada Seylac ku taala sidoo kale taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliland محمد حسين فارح حيرانه تليه وحكم يحي هجاميش وفتجا تليه بالكورة سفر كينن بسم الله الرحمن الرحيم سفر كيجا ونقول اليوم ماريا دكتة دينك حينك فوينك وسند هذه وعنقص عنا إنه والصويغ مارين وصويغ دكتيس صويغو سيلع صويغو وغير صويغو جزيرة صويغو أنا وحنا شغالين عادي أبانو بلوني ما دام عقب كي أنقص عنا مدحون نوكيني يوين شغالنا شغالنا وحق عنا قاسينا يا ماريا وبحيش ذلدي بحيي وحول بقبته وحياة بحيي بحيي أنا إسكاشين نبغى نصعنا ساكا إلا سيلع إلا أنت متقن حدك نديلا كدو إن شاء الله markuu jirta taliye inaad bal xaaladooda iyo xaqda dhabta ah ay ku nooliyeen adoogato ciidanka ilaalada xeebaha ee Seylac lagu hayo iyo deegaanada kale xeebta mar walba waa ogahay waa la socdaa oo lugtan ku tagi jiray laakiin markaan badan maray insha Allah waa markii ugu horeysay aan badda ka maro insha Allah yana guul weeye noo soo yeetay oo madaxweynuhu nooga yahay hogaamiye noogu yahay safar dheer ayaan u xidhxidhanay dhammaantayo waxaan u jeesanay oo aanu afka saarnay badweynta udhaxaysa berbera ilaa Seylac waxaanu socdaalkaygan aanu ku sii mari doonaa xeebta dheer ee u dhaxaysa labadan magaalo ee qadiimka ah ee sida deegaanka Bulxaar Lughaya Seylac iyo sidoo kale jasiiradaha aad u tiro badan oo ku yaala gobolka Siran hadda waagii ayaa baryay oo cadceedii ayaa soo ifaysa dhulkuna waa himse hadda ayaanu toosnay
oo meel markabka dushiisa oo aanu hurudnay aanu ka soo sarakaanay badda iyo dhulku waa isqabsaday waxaana ay u egyihiin midabka buluugga waxaana deris iyo saaxiib dhow la noqonaysaa mawjadaha xoogga badan ee badda iyo sidoo kale sanqadha ay bixinayaan waxaanu anagu ahayn koox abaabulan oo ciidankuna mid waliba shaqo gaara uu hayo bal waxaanu eegi doonaa ciidankiiyo siday isu qaybiyeen markii aanu ka soo dhaqaaqnay magaalada Berbera ciidanka midiba shaqo u gaara ayuu halkan ku hayaa ninkan dhalinyarada ee horteeda taagan Muniir baa lagu magacaabaa Muniir Mahdi waxa ka mid yahay saraakiisha ugu da'da yar ee ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalada Berbera Muniir adigu saaka maxaad qaabilsanay waxaan qaabilsadaa xagga cuntada imsjir maanta horta intaan aanu gelin waxaad ka shaqeyso waxaan imika 8 jir goorma ku soo birtay ciidanka ilaalada xeebaha ayaan dhawitooday marka adigu de sarkaalna waa tahay ciidanka ah kuugna waa taho ciidanka cuntadana waad karaysaa marka badda loo baxayo ma cuntada kaliya dalkaagana difacda طبعا aan difaaca way oo dalno caraf la hore mu qayb gashay waa ka qayb way xageed gaadhay fuuris la eldarad meelaha xagga bari Muniir waxaan ku weydiin lahaa nin aad u yar baa tahay inagoo xagaa kamarada eegayna waxaad iiga sheekaysaa maxaa ku dhaliinad ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ka mid noqoto ama dalkaaga aad ciidankiisa ka mid noqoto waxa igu dhaliyay marka hore waan u dhaweyn ka markii tamaaniga iska jeclaadeen ciidanka ku beero waa dalkaaga jeceshahay inaad si dalcado oo darajooyin sare gaadho taa ilaa ka jeceshahay gaadho ilaa bartoo sareysan markabkan hadda uu nagu cusubiyey wuxuu noo yimi bishii shanaad laakiin badda waxaan ka shaqaynayay adigu 3 sannadood nooc kasta ahaadee gaadiidka ciidanka baddu ma ku shaqaynayaan kabtanka ahaa laakiin markabkan hadda ilaa bishii shanaad ayaan kabtanka ahaa hadda waxay ka dhiman ma jiraan waxaan ku hayay adigu 18 sannadood baan gacanta ku hayay intii kalena markabka meelo kala duwan baan soo maray suuqyaraan ka soo bilaabay gacanyaraan ka soo bilaabay hadda 18 sannadood baan kabtan buuxaa waxaan ka shaqeeyaa makiinadoo kale qaybta makiinadoo kale waan khumrad baan u leeyahay waan ka shaqeeyaa haddii iman ay cillad ay timaado adigoo wada markabka ama ardaha noocan oo kala ma jiraan instruction ama dariiqaad raacayso way jiraan marka shay kasta markab kasta buug buu leeyahay buugaasaa laga tiraacayaa markabka wixii cillada waanu kala baxnaa in nagu imaado badaa markaan marayno safarkaygana uu ahaa safar aad u dheer oo qaatay muddo ku siman ilaa 13 saacadood ayaa waxaanu ku gaadhnay magaalada Saylac ka hor intaanaan gaadhin magaaladaasi waxaanu badda dhexdeeda aanu kula kulannay arrimo door ah oo kala duwan safarkaygana uu ahaa mid isugu jiray guuragal iyo maalin socod la darisah badweynta u dhaxaysa labada magaalo ee qadiimka ah ee Berbera iyo Saylac ayaa abbaara 12 maalinimo waxaanu si kiisa ugu soo baxnay kalluumaysato aad u tiro badan oo wadata dooyo ka badan 20 iyo sidoo kale
shaqaale kor u dhaafaya ilaa 100 shaqaalaha oo si baraadi'iya uga kalluumaysanaya meel u dhow xeebaha Saylac. hadda waxaanu bidhaaminaynaa waan eegaynaa xagga ay naga xigaan kooxahan doonyaha ee isheedu ay qabatay oo sida hirka nooga muuqda meel xoogaa naga xigta dhinaca galbeed. waanu ku soo soconnay weli waxaan u soo jeednaa waanu ku soo siqaynaa dhinacooda. hadda xaaladdu way isbedeshay guud ahaanna ciidankii ilaalada xeebaha ayaanu la soconnay ama markabka dagaal waxa uu kala diyaargarow xooggan sida arkaysaan ciidankuna waxay diyaarsadeen hubkooda kala duwan. meel ili qabataya ayaanu ka aragnay doonyo sida adhiga u taagan xeebaha Somaliland ee Saylac. waanu soo gaadhnay doonyo aad u tiro badan oo ay tiradoodu gaadhayso ilaa ku dhowaad 20 doonyood oo kalluumaysto sharci darro ah oo ka yimi waddanka Yemen oo ku sugan xeebaha Somaliland. ciidanku hadda waxay soo saareen markabkan dagaal ee aanu saaka kaga soo boqolnay magaalada Berbera. wadayaashii ama naaqudayaashii doonyaha ayaa qaarkood la soo saaray sida aragtaan markabkan dagaal oo waqtigan halkan saaran. sidoo kale waxaa doonyahan saarnaa dad ay tiradoodu kor dhaafayso ilaa 100 shaqaale ah oo iyagu ku hawlanaa kalluumaysiga sharci darrada ee ka socday xeebaha Saylac. hadda waxaanu soo gaadhnay magaalada qadiimka ah ee Saylac. halkaas ayay magaaladu ka soo booqataa waxaana noogu diyaaraa xilliga badda maamulka kala duwan ee degmadaasi. markabka aanu wadanay ayaanu ku xidhannay duleedka dhinaca bari ee magaalada Saylac waxaana aanu halkaasi ka fuulnay doonyo yaryar oo ay leeyihiin ciidanka ilaalada xeebaha ee Somaliland si aan ugu gaadhno magaalada Saylac ama xilliga badda. doonta yar ayaa markii aanu soo raacnay waxaanu kaga soo degnay xeebta magaalada Saylac. doontu dekad kuma xidhan balse waxay ku xidhatay meel bannaan ah oo aanu annaguna ka soo boodnay doonta si aanu biyaha badda uga badbaadno amaba aanan ugu dhicin. maamulka degmada Saylac ayaa halkaasi hadallo soo dhaweynaa ka iri. wafdi balaaran oo nooga socda xukuumadda Soomaaliland waftigaasoo ka kooban maarayaha guud ee dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland, taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Somaliland,
iyo wafdi kale oo balaaran oo la socdo oo ay ka mid yihiin taliyaha saldhigga koowaad ee gobolka saaxil iyo maareeyaha aafooyinka maareey ku-xigeenka aafooyinka qaranka ayaan halkan ku soo dhaweeynaa waxaan leenahay welcome ku soo dhawaada gobolkii Salel aniga oo intaas soo dhaweynta hadalka ku soo koobi doono oo wixii barnaamij ay noo dambeeyo in maanta taariikhdu tahay 12 bishii Oktoobar waxaan ku soo dhaweeynaa wafdi balaaran oo ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka mid yahay maareeyaha dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha guud ee ciidamada xeebaha ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland taliyaha saldhigga koowaad ee ilaalada xeebaha koowaad maareeyaha xigeenka aafooyinka dhammaan waxaan ku soo dhaweeynaa ku soo dhawaada degmadii Saylac ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad ma xalay soo dhawaada waftigan balaaran ee ka yimid barbara ka soo kicitamay taliyaha guud ee ciidanka badda iyo maareeyaha dekedaha Soomaaliland maareeyaha ku-xigeenka hay'adda aafooyinka qaranka iyo taliyaha saldhigga koowaad ee ilaalada xeebaha waxaan leenahay horta marka koowaad gobolkii Salel ku soo dhawaada mar labaad degmadii Saylac ku soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waan dareemaynaa shaqo qaran baa u socotaan ilaa afartii xalay badda ugu soo jirteen si qarankiina wax xoogaal ugu noqotaan runtii annaga farxad ahaan bay nagelinaysaa ka gobol ahaan xoogaal noqoshada rasmiga ah ee u soo saacadaha dheer u soo socoteen ee timeka dheer soo socoteen waxaan filayaa in socodkiina noqon doono mid guul weyn wata taariikhdana ku santami doono mahad leh nabad keenay safar dheer kadib safar qaatay 12 saacadood oo badda ah wuxuu ahaa safar taariikhi ah runtii aniga wafdigaan wada soconay jananka u horeeyo injineerka dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku-xigeenka aafooyinka qaranka taliyaha saldhigga koowaad ee berbera ee ciidanka ilaalada xeebaha runtii waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta leh karaamada leh noo soo dhaweyseen waa markii koowaad inkastoo joogay maareeyahaygii dekeda Saylac runtii muddo dheer baan sugayay inaan imaado laakiin waxaan doortay inaan badda soo maro taasoon ku guulaysanay iminka intii aanu safar ku soo jirnay muddada dheer ee aanu sugaysay waxaan ugu kalifay waxaanu la kulannay kalluumaysato sharci darro ah oo tallaabo adag ka qaaday jananka ciidanka ilaalada xeebaha iyo ciidankiisuba runtii iminkana nala socda isagana faahfaahin ka bixin doona marka mar labaad iyo mar saddexaadba muddada dheer ee na sugayseen waa idinka mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noo soo dhaweyseen waan idinka mahad celinaynaa guddoomiye iyo dhammaan madaxda kale ee gobolka Salel iyo degmada Saylac dhammaan iyo guddoomiyaha degmadaba runtii farxad dheeraad ah ay nagu abuurtay waanan aad iyo aad baan u faraxsanay waxaan ku soo dhaweynayaa degmada saxaafadda dhammaantiin waxaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkii waxaa yidhi maayirkii waxaa yidhi maareeyii baa yidhi socdaalkaygu wuxuu ahaa iskaashi maareeyaha iyo annaga naga dhexeeya iyo annagoo helay weel naafaca oo aanu ku qabanno ama ku dabargoyno wixii kontrabaana wixii sharci darraa annagoo helay waxay noqotay inaan safrigii horreeyay idinka siino waana la kulannay doonyo badan oo 20 gaadhay haddaan 15 ahayn naaqudayaashii ku soo dejinnay qaar baa la sharci baanu nahay wixii sharci wixii kale maca guddoomiyaha waan arki doonnaa barasaabkii oo goobjoog ka ahaan doona dhammaanteen reeraan ka geli doonnaa hadday sharci haystaan ku joorfali mayno laakiin waxaan filayaa inay u badan yihiin macallimiinta iska iman jirtay dagaal naga jiri doonaa haddii ilaahay ka dhigo marka keligiin ma haddii ilaahay ka dhigo xaggaana barna waan qaban doonnaa laakiin maarayo idin jeclaa baa illa innaga olwas la weysiiman jiray aan ku horreeyay Saylac marka waxaan leeyahay soo dhawaada dhammaantiin waan soo dhaweynaa waswaraysan doonnaa wixii jira barasaaba gaar baan la foofi doonnaa maayarka dhammaantiin dee waxaan leenahay wada shaqayn wanaagsan habeennimadii waxaan u hayanay magaalada qadiimka ah ee Saylac oo si weyn lagu soo dhaweeyay subaxii labaad ee safarkayga magaalada Saylac oo habeenkii u hoyanay ayaanu ka soo kacnay waxaanu ka quraacanaynaa maqaaxidan oo ku taala bartanka magaalada Saylac meelan ka fogeyn qodbiga uu ku aasan yahay Sheekh Saylici
quraac kadib waxaanu u dhaqaaqnay halkii shalay aanu ka soo galnay magaalada oo ah xeeliga dhinaca bari kaga beegan. halkaade raasi dheer imika bartaa haddaan ka baxo dikadii kale seydacbaan kor aan saa uur istaagaya kumaha magaalada may inta yarunba dhinacanba ka soo galaana ee raasi dheer baa jira qoful maro gaadhigo dhinacan koonfurtuba ka soo galaa haddii waddaa soo noqotiin baa soo waxaan imika aanu bilaabaynaa inaanu maantana safarkii halkii ka sii wadno sida daawadayaal dhabarkayga ka arkaysaan halkan ayaanu ka fuuli doonaa doonyaha halka taagan oo kolay baddaanu dhex mari doonaa oo laashashkaasaanu fuuli doonaa waa la lugaynaya kolay biyahaas ayaa la dhex batalaqsan doonaa deetana laashashkaas ayaana qaadaya markabkaygii aanu la soconnay oo halkaa taagan ayaan u tegi doonaa. magaalada saylac oo ah magaalo ka soo jeeda ilbaxnimo iyo xadaarad qadiimiya imika waxay ciidamada badda oo dadka diriiska cad xidhan ee dhabarkayga ka muuqda ama dharka cad xidhan ee shirkaamada iyo alaabta sida ee sahayda noo saaraya laashashku ay isku dayayaan inay sameeyaan meel yaroo aanu ku tallaabsanno aanu marno haddii ay macquul noqoto inkastoo ay badda mawjadeedu ay kacsan tahay oo ay xoog badda u garaacayso caaridka. kolley safarkaygan saaka waxaan u ambabixi doonaa qaar ka mida jasiiradaha uu leeyahay dalkan jamhuuriyadda somalilan oo ay ku jirto jasiiradda caanka ah ee sacadadiin iyo qaar kale oo badan. hadda waxaanu soo gaadhnay markabkaygii oo aanu fuulaynaa doonida yare ay arkaysaan inay ku xidhanayso markabka ayay dadku ka wareegayaan oo waxay fuulayaan markabka weyn. waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ciidanku waa maalinta labaad ee ay hawlgalka ka qayb galaan haddii ilaahay ka dhigo oo aanu badda ku sii soconno hawshaydaan wadano waxaanu tegi doonnaa ilaa inta xadka aynu leenahay baanu soo mari doonnaa oo soo arki doonnaa madaxduna waa nala soo arki doontaa maareeyaha guddoomiyaha giddi dhammaantood insha allah waxa weeye guul baan noo rajaynayaa. waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha inoo keenay maanta inaan agabkeenu ku shaqayn lahayn badda insha allah waxa weeye waynu sii xoojin doonnaa bari baanu qaban doonnaa farigama codna faalan haddii ilaah ka dhigo. waa safarkii labaad ee aanu ku baxayno waxaan runtii horta marka ugu horreysa uga mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qalabaynta iyo agabka faraha badan ee u soo iibiyey ciidanka ilaalada xeebaha kuwaasoo hananaya siday ka muuqato waa halkan safarkaanu ku wehelinay shaqo weyn ka qabtay. waxaanu leenahay madaxweyne ha loo sii kordhiyo agabkana ha loo soo badayo maadaama baddeennu dheer tahay oo ay u baahan yihiin shidaal badan iyo qalab badan. waan ku ammaanayaa runtii shaqada badan intii aanu badda ku soo jirnay muddada dheer hawlaha ay badda ka qabteen. faraxsanahay inaan maanta ciidankii badda oo taliyahooga hogaaminayo iyo maareeyada dekedaha jamhuuriyadda somalilan aan maanta safar dheer la gelayno oo faystoogiya. alxamdulilah safarkii koowaad sidaan shalay sheegnay nabad bay nagu soo gaadheen kii labaadna maanta qayb baan gobol ahaan iyo degme ahaan iyo ciidan ahaanba qayb baanu kalana. waxaanu socdaalkaygan aanu uga sii ambaqaadnay magaalada saylac jasiiradaha ku yaala gobolka salal gaar ahaanna ilaa 7 jasiiradood oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada saylac. jasiiradahan waxaa ka mid ah jasiiradda caanka ah ee sacadadiin iyo sidoo kale jasiiradda caanka ah ee yanay ku taallo noobiyadda qadiimka ahayd ee ay dhistay dowladda cusmaaniyiintu wakhtigii ay maamulaysay magaalada saylac ee ceebaad. socdaalkan waxaanu ku soo mari doonaa goobo kala duwan oo taariikhiya oo ku yaala jasiiradahaasi iyo sidoo kale xeebaha gobolkan salal. daawadayaal sidii aad la wada socotay waxaanu ka soo dhaqaaqnay abaara 7 subaxnimo magaalada saylac oo aan uga dhaqaaqnay dhinaca galbeed waqooyi. hadda waxaanu joognaa jasiiradda lagu magacaabo ceebaad oo dhinaca galbeed waqooyi kaga beegan jasiiradda sacdadiin. jasiiraddan markii aanu soo gaadhnay waa dhul aad u qurux badan oo deggan oo aad biyahooda ay nadiif yihiin keliisaad oo aragtaan. ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ayaa xarun ku leh goobtani waa goob
u dhow baabul mandab ama albaabka ay maraakiibtu soo maraan ee cadan ama badda cas sidoo kale dhinacan galbeed waxaa ka soo eegaysa Djibouti xeebtan ama jasiiradan ceebaad ayaa waxay ka mid tahay jasiiradaha toddobada ah ee ku yaala gobolkan Sanaag ama degmada Saylac bal gudoomiyaha gobolka Sanaag oo imika waftiga ka mid ah baan wax ka weydiin doonaa jasiiradan gudoomiye ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay waxaan ku faraxsanahay in maanta ay nala joogaan wafti ballaaran oo hogaaminaya taliye ciidanka badda maareeyay dekedda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliye saldhigga dhexe saldhigga koowaad ee Berbera runtii farxad gooniye bay noo tahay ka gobol ahaan jasiiradani waa jasiiradaha ugu faca weyn leh waa jasiiradii ceebaad waana qaybna waa ka deked oo dooyi badan baa istaago oo ka kalluumaysta waana jasiiradda kalluumaysigu ugu weeyahay gobolka ee uu istaago ee laga kalluumaysto runtii waan arki doonaa jasiiradan daawadayaal sida halkan arkaysaan waa duleedka xeebta loo yaqaano Sacadadiin meel 4 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan waa jasiirad ay degan yihiin shimbiro khaliya halkan daawadayaal dhabarkay ka muuqata shimbiruhu way ku dhalaan xeebtan iyagoo kumanaana ay dhabarkay ka muuqdaan imika way yaabihiin waxaan soo booqday u yimi oo adiga qeylada maqlasan iyo waxankeeda maariyaha gudaheeda ka magaalada Berbera سعيد حسن عبد الله oo kamid ah hogaamiyaasha waftigeega ayaa jasiiradan ay shimbiruhu degan yihiin nugula sugan maray ba ka waran jasiiradan aynu nimi wallahi jasiiradan waa jasiirad qaali ah halka muxtaar waxaad ku aragtaa noobiyadii baabal mandab loogu tala galay marka insha Allah waxaan jecel lahay inaan imika soo booqano dhulkeena nimca fadhida alxamdulillah rabbil caalamiin saddex waa ma sha Allah hadaan ahayn waa markii ugu horeysay maadaama sidii ku sameynaysa aragti aad u qurux badan runtii yani dhulkeena inuu dhul qaali yahay tourismka ayay important u tahay inaynu ka faa'iideysano dhulka inta la eegano haysano waxa weey waxaynu haysano hadaynu garan weyno waa mashaakil waxaa sidoo kale gobolkani Sanaag uu leeyahay jasiirado kala duwan oo ay ka mid yihiin jasiiradda Sacadadiin ee caanka ah jasiiradda ceebaad suluqtiya mashaa'ikh uranjaale iyo sidoo kale jasiirado kale aad u qurux badan oo ay qaarkood ku soo jiidanayaan markaad marayso sidoo kale la socotaan waxaanu soo gaarnay jasiiradda caanka ah ee Sacadadiin oo masaafo gaaraysa ilaa 3 kilomitir iyo badh dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Saylac jasiiradani waa jasiiradda kale badii iyo dhulkii ayaa isku xiran dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryaqay sidii kubad aanan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay arwaqada dhextaal iyo nimcada waan ku dhulay dhulka hooyaday waan jeclahay dhaqashadiisii dhuuxiyo naftaydiyo qalbiga waa ku dheeryaqay sidii kubad aan dhalay oo kale aan dhabu jelaystay وقد تحتالي يوم عدك وانكو لما دوني ذا لقولون يبوخي ما دير يا غير
حنبر فايو لغما وقدمع كليل كده ربي باي سوق ديني تري عميلا ديفتي دايك جلي عمر قدك مدرقايا tanina waa noobiyad ay dhistay dawladdii Cusmaaniyiintu waqtiga ay ka talinaysay magaalada Siilac noobiyadani waxa ay isku xidhaa magaalada Berbera iyo sidoo kale noobiyad ku taala wadanka Yemen waxa sidoo kale soo eegan jiray maraakiibtu markay ay ka soo gudbayaan maranbiyoodka Babul Mandab ee ay ku kulmaan badda cas iyo sidoo kale badda Indian Ocean ee u dhow wadanka Yemen waxay noobiyadani ay mataan la tahay noobiyada ku taala duleedka magaalada Berbera waana goobaha taariikhiga ah ee ku yaala dhinaca waqooyi ee magaalada Siilac gaar ahaan jasiiradda Ceebaad oo ah jasiirad aad u qurux badan oo ay ku nool yihiin dad aad u tira yari waxa sidoo kale jasiiradani ku soo xidha doonyo yaryar oo kalluumaysi dhammaan waxaan joognaa halkan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane maareeye halkan aan joognaa waa noomiyadii isku xidhaysay sidaan hore u soo sheegay Babul Mandab maraakiibta maraysa iyo maraakiibta joogta Berbera noobiyada waxa la dhisay muddo laga joogo muddadii ka bila taariikhdu markay ahayd 1885 noobiyadani waqtiga waxa dhisay dawladdii Turkiga ama Abbaasiyiinta Cusmaaniyiintii waqtiga ay ka taleen iyagu degmada Siilac ee qadiimiga ka talinayeen noomiyadani waxay ka mid tahay yaana taariikhiga ah ee aan ku faano degmahaan ima gobol ahaan bay ka mid tahay runtii waxa shaqada ugu dambeysay waqti muddo 30 sano ka hor dawladdii hore ee muxuu ahaayay xukuumaddii hore dhacday waqtiga ayaa shaqo ugu dambeysay muddo 30 sano aan may shaqan maray may shaqan wax shaqana kamay qabanin wad arkaysaan burburka iyo dayaca iyo waxa ka muuqda wad arkaysaan waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaad maanta mar haddaad aragteen adigoo ah maareeyihii dekedaha Jamhuuriyadda Somaliland taliyihii ciidanka badda ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo saraakiishanaba waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inaad wax ka bedeli doontaan Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka kooban tahay 8 jasiiradood 7 ka mid ah sida gudoomiyuhu sheegay waxa dhacday degmada Siilac hal jasiirada ayaa bariga dhacday jasiiradaasna waa jasiirada Rabshiga la yiraahdo geedka shabri Rabshiga la yiraahdo ciiriga ku taala waxa aad iyo aad aan idinku soo dhaweynaa halkan oo aad jasiiradda Ceebaad waxa ku taala noobiyadii qadiimiga ahayd ee xilligii Turkiga la dhisay noobiyadaasi waxay xiriirinaysaa sidii uu gudoomiyaha degmadu sheegay noobiyada ku taala mandabka ee Raasbiir leeyahay oo maraakiibtu markay Raasbiir foodo soo saaraan waxay ku soo ajmas gareynayeen noobiyadan Raasbiir oo ku taala ubuq waxay ku soo xijisiinayeen waxay ku soo xijisiinayeen noobiyada Ceebaad taa Ceebaadna waxay u gudbinaysay oo ay ka ashtaal qaadanayeen saa rasmiga ee dekada Berbera waxa aad iyo aad maanta noogu nasiib wanaaga maadaama ay marayaan madaxdii dekedaha iyo ciidamadii badda ee cidii u xil saarayd in hawlaha waxay nagala qabatay si maayarku hore u soo sheegay waxaan aad uga codsanaynaa kullee waa cidii nooga sareysay waa cidii aan u gudbin lahayn baahiyaha iyo wixii aan qabnay baahiyan qabno waxaan aad uga codsanaynaa inay noo soo hoos u eegaan oo bahashaasi wax ka qabtaan oo noobiyada kiciyaan inta markaan ka gudbo ilaa shalay waxaan ku soo jirnay habeen hore afartii habeennimo ayaan waxaan ka soo galay safar magaalada Berbera baddaas dheer ayaan soo marnay ee Jamhuuriyadda Somaliland ay leedahay waxaan xalay u hooyanay magaalada Liyaha Siilac iminkana waxaan joognaa jasiiradda Ceebaad ee aad halkan ku arkaysaan waxaanu kala tagi doonaa jasiiradda Saacadudiin safarka iyagana waa safar taariikhiya waa safar kurgal xaaladda deegaanada ku sugan yihiin waa safar xuduudda baddeena iyo xuduudda ciidankeenu ay soo muujinayeen waa safar lagu ogaanayay ciidanka badda Jamhuuriyadda Somaliland xuduudiisa marka hore aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa iyo saxaafadaba sida sharafta iyo karaamada leh noo soo dhaweyseen waxaanu gudanaynaa waajibaadkii qaranku xaqan ugu lahaa aan xilka ugu haynay noobiyadana arkaysaan waa important waa yani aad bay muhiim u tahay sidoo sheegay gudoomiyaha degmadu inay xiriiriso Babul Mandab baabkan oo ah 35 oo markab ayaa mara waana kuwa aan rabno inaynu soo jiidano oo aynu wax ka iibino
markaa waxaan maanta ballan qaadayaa in noobiyadda oo aan 30 sannadood shaqayn sababta aan u imina ay ka mid ahayd iyada inaan sidii aan usoo xaaladeeda usoo eegi lahayn waxaan ballan qaadayaa in sida ugu dhaqsaha badan noobiyadda uga shaqaysiin doono weliba aan u casriyeyn doono oo navigation lightskii ay lahayd lighthouse-kii ay lahayd ku samayn doono iyo dib u habeen aad iyo aad gudoomiye waa ka ballan qaadanaa taa waa muhiimadda ay qaranka u leedahay baan ognay insha allahu cadceedda kulul hadalka badin maayo waxaan ku soo wareejinayaa gudoomiyaha gobolka waxaan mahadcelinayaa nimankan saxaafadda oo gudbinaya isla markiiba waxa loo waxaanu qabanay hadalkii waa dhameeyey annagu waxaan waan ka ciidan ahaan inaanu qaybteeda ka qayb qaadano waxaan ilaalin doonaa noobiyadaha kulan ilaa 4 xabo wixii aataara waa ilaalin doonaa haddii la ka dhigo waxaan xoojin doonaa sidaan u ilaalin lahayn xadkeena iyo ciidankeena loo kordhin lahaa aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa marka laga tago taariikhda guud ee noobiyadan kolley horaa wax looga soo yidhi laakiin anu waxaan sheegi doonaa inay 4 noobiyadood ku yaalaan koonkan eerladan ama soonkan aynu ku noolahay mid waa mamiyo bay ku taallaa midna odoq bay ku taallaa midna waa tan ceebaad ku taallaa midna berberay ku taallaa laba ka mid ah Soomaaliland bay ku yaalaan Siirda midna Yemen bay ku taallaa midna Djibouti labada ka mid ah Soomaaliland taa berber way shaqaysaa waxa muhiim ah in tan aynu ka shaqaysiin maadaama gobolkan uu yahay ama degmada Saylac tahay degmada ugu ansaarta badan leh Soomaaliland qiblateenkii baa ku yaala halkana ku taalla tasiirada badan oo noocyo badan la ku yaala masxafkii baa ku yaala meelo badan oo Soomaaliland anfac u leh ayaa ku yaala runtii saraakiisheedan qaranka ka wada socda waxaan ka howlgeli doonaa sidii taariikhda Saylac loo nooleyna maalinta labaad safarkaygu waxa uu ku eegaa jasiiradda ceebeed oo dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Saylac isla duhurnimadii ayaanu ka noqonay xeebtaasi anagoo u sii jeedna magaalada Saylac dib ayaanu u qaadanay doonyahayaga dheeraynayay si aan ugu noqonno magaalada Saylac oo xarun u ahayd magaalada Saylac ayaa waxa ay noqotaa waqtiyada duhurkii mid ay baddu dib ugu caarido isla markaasina yeelata gacmo waaweyn oo aanay ka gudbi karin ama aanay dhaafi karin doonyuhu isla markaasina ay caaridaan badda dhexdeeda ayaanu ka soo degnay oo waanu soo lugaynay waxaanu soo marnay dhul aad u dheer iyo biyo dhexdood dhammaan mas'uuliyiintu dharka ayay fiiteen si ay uga tallaabaan gacmada ay baddu samaysay si aan ugu qabanno magaalada oo aanu deganayn waanu soo soconnay si aan u gaadhno magaalada gudaheeda magaalada Saylac oo ah magaalo taariikhi ah ayaa isla habeenkii baanu ku soo guryo noqonnay isla subaxnimadii ayaanu haddana magaalada dib uga boqolnay anagoo kormeer ku soo marnay dekada qadiimka ah ee ay magaalada Saylac lahayd safarkuna waa maalintii saddexaad waxaanu kormeer iyo indheyn aan ku soo sameynay dekada ay Saylac lahaan jirtay maamulka iyo sidoo kale maariyaha dekada Saylac ayaa ka warbixiyay taariikhdii ay lahayd dekadani iyo waqtiyadii ugu dambeysay in la isticmaalo dekadan oo sida taariikhda lagu sheego ama dadka aan ka soo xiganay taariikhaha ayaan ka soo xiganay dhisnayd muddo laga joogo imika ilaa qarnigii 16aad oo sida taariikhaha aan ka soo gaarnay dekadan oo ahayd dekad qadiimiya oo quudin jirtay geeska Afrika iyadoo oo ku xidhnayd magaaladii la oran jiray Adare ama imika loo yaqaan Herar ayay ku xidhnaan jirtay dekadani waa dekad qadiimiya waa dekad waqtigeedii soo qaadatay waa dekad damaantana ugu liidatay dekadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland marka loo eego iyadoo aan haysan wixii imkaaniyaad ama hawl fududeynaha ee laga hawlgal lahaa ee laga shaqeyn lahaa ama wax dib u dhis iyo dib u ballaarin oo aan lagu sameeyay inay jirin tan iyo maalintii Turkiga dhisay oo faraha ka qaaday intii ka dambeysay waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa maadaama maanta noo timaadeen mudana maareey waa dekad kamid ah dekadaha xukunto ee ku hoos yimaada kulley xildhibaan halka Cabdikariin saaxiibkeena waa ka hadliyay war malaha dekada loo gol yahay ma aha wakiina laha waxaan idinka mahadnaqaynaa ama aad ka codsanaynaa soo dhaweynta aad noogu timaadeen iyo socdaalka kormeerka qiimaha badan ee noogu timaadeen inaad wax qabadkeedina aad noo raacisaan anigu mid yar lagu ma ku daraya mid Saciid baan leeyahay Saciid waxaan leeyahay 3 sano iyo siyaadadiisa dekada berbera halka ay maanta mareysana waa la garanaya maalintii lagu dhiibinay halka taagneed waa looga sida dekadiisa ee berbera u hormaristay ee ay maanta adduunka Soomaaliland siyaasadeeda u soo jiidatay ee maraakiibkii ugu weynaa soo istaagaysa habeen iyo maalinba laga shaqeynayo waxaan ka codsanaynaa
ka gobol ahaaneed inaad tanna saa taa u hormarisa maadaama uu tahay maanta shakhsiyaadka Soomaaliland ku faanto ee dekada berbera meel wanaagsan gaarsiiyay wala ogyahay dekada berbera maanta nidaamkeega iyo halkay maraysa shaqadeedu taa maareeyahan le maareeyo waxaan ku leeyahay sida taa berbera aad maanta talabaadeed bilaabaysana ha noqoto tasaylac insha Allah bismillaahir kariim waana codsi iyo markaan aragnay dadaalkaaga iyo markaan aragnay sidaad ugu soo dhiiratay inaad dekadii aragto nala soo aragto safarkaaga 70% waxa kamid ahaa inaad dekada soo aragto xaaladeeda targetkeyga iyo inaad mastaafada badda inta leeg iyo dhibaatada inta leeg ciidamada aad wada shaqeysaan adigana duruuftooda la soo dareento maadaama uu tahay maareeyay guud ee dekada Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka marka laga tagay qodobka labaadna mid baan leeyahay ummadu iyada isku tashata haddii aan inagu inta ilaalino oo aynu dayaca ka ilaalino waxaan aaminsanahay wala inagu soo gaari laakiin haddii maalinba dhanka kale ay biyuuna kaga yimaadaan oo maalinba dhagax naga qaado intana naga sii baabaayis annana maaray waxaan ku ballan qaadaynaa inaan waxaan ku dari karno ku darno inaan ilaalino inta maanta halka jirta kulli siyaasadda Soomaaliland way ka mid bay tahay dekada dalka ku beertay shaqayso maadaama gobolka Hoona ah oo ku yaalo meel xada halkan kasta ku yaalo alaab badan oo imaqada dalka Djibouti ka soo marto halkan soo marto waxaan u baahanahay in dekadana la hawlgeliyo si ay dekadaha qaranka uga mid noqoto marka mudane maareeye ku soo dhawow 120 mitir ayay iska wax qabto ugu dhisay waa koow dekad iska wax qabto ugu dhisay Soomaad garan ilaa halkan iyaga soo gaarsiiyay hore ma dhisnaan jirin maanta waxaan ku soo talagay dacaarigii dooyinta taagsiin batay Soomaaliya laakiin dekad uu ku soo xiran karto dooyo ayaa tagaysa Soomaaliya wato alxamdulillah rabbil alamin waxaan ka warramay horta safarka iyagana maanta kii koowaad insha Allah noqon maayo wuxuu noqonayaa safar aan ku marno saylac اللهم صل على محمد كريم حيس ميد لاسقري الى عيلان كسعنا ثانا waxa keenay 25 sano kadib markii Soomaaliland madaxweynaha la soo noqotay ayaa madaxweyne Muuse Cabdi uu 3 sano ka hor wuxuu abuuray wakaaladii dekadaha Soomaaliland oo qaranka ugu mas'uul noqon doonta dhismaha dekadaha xeebaha iyo maamulkooda ومركي ugu horsay 25 sanadood ayay koow tahay marka xilkeedii koowaad baan ka bilownay halkan imka saylac ilaa ceelaayana waan socon doonaa hadii Allah yiraahdo mar labaad iyo mar saddexaad baan idinka mahad celinayaa mar labaadka runtii maanta waxa ahayd inaan soo booqano dekada saylac bal xaaladda ay ku sugan tahay waxa la socda injineerkii dhisay dekada berbera injineer Cabdiraxmaan oo isaguna assessment ka qaadi doona laakiin muhiimaddu waxa weeye dekada saylac in la dhisaa waa muhiim in mashruuca sidii loo horumarin lahaa aynu falagood qabanaa waa muhiim baahida loo qabaana waa weyn tahay geeska Afrika inaynu sabalay gareyno ayaa loo baahan yahay oo ay noqoto hab dekada berbera ay la dekada kale oo markay busy noqoto lagu soo xidho doonyaha iyo maraakiibtaba si ay feeding center u noqoto oo looga sabalay gareeyo transshipmentka looga fuliyo laakiin ummaddu markay ogaato asadka ay leedahay waxaynu haysano markaynu garanayna qiimaha ay leedahay maanta cid aan hungureynayn booqasho kasta oo lanugu yimaado dekada berbera waxa ku xigta dekada saylac in warbixin lanaga qaado inaanu xaqiiqdeena ogaano inaanu sidii ugu dhaqsaha badnayn aan uga wada hawlgal lahayn siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa koow ka ah in la kobciyo la dhiso dekadaha ay dalku leeyahay runtii mar labaad iyo mar saddexaadba waan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta insha Allah idinkuna waxaan jecel lahay bal inaad soo booqataan oo la isdhex galo la fahmo xagga waxa yaala xaggan waxa yaala insha Allah bismillaahi kariim safarkana noqon maayo kii ugu dambeeyay waa soo noqonaynaa injineerada waa soo direynaa assessment waa sameeynaa sida madaxweynaha uga go'aantay anagana waan uga go'aantay anagoo fulina siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan mahadsantahay safarkan waa safar taariikhi ah isla markaasna ay noqonayso markii koowaad ee aanu socdaal ku tagno waqooyiga Soomaaliland gaar ahaan dhinaca xeebaha Saylac iyo Berbera u dhaxeeya ayaa waxaanu kula kulanay goobo kala duwan oo aad ku soo jiidanaya sida jasiiradaha kala duwan waxa sidoo kale deegaankani uu tababaray xayawaanka waxaanu la kulanay geer isagu ku dhaqan magaalada Saylac
oo badda ka tallaabaya islamarkaasina dabaalanaya. halkaan sidoo kalena aanu aragnay xoolo iyagana loo daaqeeyo dhirta guudkooda oo xagga sare ee geedka maalin oo dhan daaqaya fiidkiina laga soo caraabiyo. hadda waa hal geed oo kaliya ayaa la saarayaa xoolo gaadhaya ilaa 50 neef. muuqaalkana arkaysaan waa riyo daaqaya geed korkiisa. riyahaasi ciidamo ay saarin balse waxay la qabsadeen deegaanka waa lagu dareeriyaa. waxaa sidoo kale halkaasi arkaysaan neef geela oo u tallaabaya dhinaca magaalada islamarkaasina soo daaqay mid ka mid ah jasiiradaha ku xeeran magaalada Saylac. magaaladan oo ah magaalo taariikhiya islamarkaasina ka soo jeeda taariikh ilbaxnimo oo facweyn ayaan la soo koobi karin waxyaabaha ku duugan. goobahan aragnay waxaa ka mid ah masjidkii taariikhiga ah ee Qiblatayn oo ah masaajid looga tukan jiray jihada masaajidka barakeysan ee Al-Qudus iyo sidoo kale jihada saxda ah ee uu tukano ee masjidka barakeysan ee Haramayn. waxaa sidoo kale magaaladan ku arkaysaa dhismayaal si qurux badan oo farshaxana loo dhisay oo ilaa imika magaalada qaarkood la isticmaalo sida xafiiska maamulka gobolka iyo sidoo kale goobo kale oo muhiim ah oo ka agdhow oo ay ka mid yihiin goobaha ay ku shaqeeyaan kastamka iyo goobo kale oo aad taariikhdoodu u fog tahay. barnaamijkii intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe. waxaan ku dhaafay anigoo ah Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud iyo dhammaan bahda telefishinka qaranka ee Soomaaliland. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhexdiisaan ku noolahnaya jirgulnayliwe dhalintaan waxaan barahayaa dhaqamadoodii شرفتنا وحد من اياها دافاليها بسقرن كادلي كتشرت بلوتاغا